waxa uu noqon lahaa garoon kulmiye boqolkiiba 75 dhalinyarada mihnada ciyaaraha Somaliland oo dhan gaar ahaan kubadda cagta Shulac Stadium waa garoon baaxadda dhuleed ee uu ku fadhiyo darteed noqon lahaa garoon fudeediyo culayska garoomada caasimadda Hargeysa haysta sida kan koowaad ee Hargeysa Stadium iyo garoomada la midka ah ee Tareeriska, Xawaadle, Durqaanta, Gannad, Guryasamo, Dhalinta, Maxamuud Axmed Cali iyo Maxamed Mogo dhamaantood caasimadda Hargeysa ku wada yaala waa kuwan gudidii gacanta ku hayn jirtay mar garoonka la hilmaamay dhismihiisa ee Shulac Stadium oo ka warbixinay markay gacanta ku hayeen halkii uu marayay dhismaha garoonka Shulac Stadium ee waqooyiga magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Ibraahim Koodbuur halkan aan joognaa waxa weeyaan garoonka Shulac oo howshiisa ay socoto bulshada reer Somaliland waxaanu sheegaynaa inay ka soo qayb qaataan garoonkan dhismihiisa gudaha dibadda ummaduhu haday isku tashadaan inta ka badan boo inuu qabsan karnaa waa hadii gacmaha la isqabsado oo fikirkeedna uu nimadeeyo wax inooga baahi badan maanta ma jirto inaynu sameeyno meel ay dhalinyarteenu maartay ay kagana mashquulaan wax loo yaqaan tahriibta wasiirkii hore wasaaradda ay khusayso arintani ee ciyaaraha Somaliland Cabdirasaaq waa bari rooble xukuumadii Axmed Silaanyana markii uu booqday garoonkaasi isagoo u mahadnaqayay gudidii gacanta ku haysay garoonkaasi waxa uu yiri guddiga ismaha garoonkan Shulac oo aan maanta ku soo booqday isla garoonkan Shulac oo gudoomiyihii iyo xubno kamida guddiga ay joogaan marka hore waxaan u celinayaa mahadnaq annagu ka wasaarad ahaan wuxuu madaxweynuhu loo igmaday inaanu kor u qaadno dhalinta iyo ciyaaraha hawlahooga inaanu ka shaqayno runtii ciyaaruhu waa muhiim waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaanu dhalinyarteena ku dhiirigelino mar kale waa kuwan saddexdii musharax madaxweyne ee xisbiyada Somaliland ku tartamayay hanashada kursiga Somaliland ugu sareeya ee madaxweynenimada oo baaq ahaa sidii looga qayb qaadan lahaa dhisitaanka garoonka Shulac Stadium waxay bulshada u direen waqtigaasi ay fariinta dirayeen fariintan baan halkan maanta jecelahay inaan shacabka reer Somaliland aanu u diro baaq aan ugu baaqiyo in gacan laga siiyo dhismaha ay gacanta ku hayaan ururka akademiyada horumarka isboortiga maanta dhalinyarteenu waa ogtihiin meel ay ku maararoobaan way ka baxsadaan qaadka waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada maadaama kadeerkii way dhameeyeen waxa ay waa garoonka la dhiso cid wal oo dalaynaysa waxaan jecelahay in laga qayb qaato aan shacbiga reer Somaliland dhamaantii gudaha dibadda ugu baaqayaa in lagala qayb qaato oo gacan buuxda la siiyo wasiirka waqtigan ee wasaaradda ciyaaraha Somaliland Yuusuf Mire Maxamed Boos ee xukuumadda Muuse Biixi Cabdi marnaba muddadii 2 sano ahayd ee uu hayay wasaaraddaasi ma booqan garoonkan iska daabaqo u dirsado cid kasta ka qayb qaadan lahayd dhisitaanka garoonka Shulac Stadium balse taas bedelkeeda bahda ciyaaraha Somaliland gaar ahaan intii ay damqaysay sidii loo heli lahaa garoon kubadeed oo labaad oo caasimadda Hargeysa ay yeelato ayaa booqday garoonkaasi waxaanay ka soo dhex direen fariin ku socota cid kasta ka qayb qaadan karta dhisitaanka garoonka Shulac Stadium oo baahi weyn loo qabo waxaanay yiraahdeen garoonkii waa la bilaabay si qurux badan baa loo bixiyay ilaa ka jisaysiye qoyska ilmo Shulac ayaa magaca garoonka iyo goobta ugu deeqay dhalinyarada Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa dhammaan bahdii sportska waxa la sugayaa oo in badan dadku sugayaan tamaniyayaan in garoonkii halka ku dambeeyay oo dawladii Axmed Siiraanye bilaabmay dabayaaqadeedii dawladda Muusana aan wali saylan ku jiroon halkeedii laga soo qaadin garoonkani wuxuu ka qaadi karaa culayska caasimadda hadii la dhiso kooxo badan oo aan tartan ciyaareed helin buu culays ka qaadi karaa haday aalamiita tahay haday tahay culayska stadiumka haysta marka waxaan faranaa on fariin u sheegnaa maanta dhammaan cid kasta oo dhalinyaro danaysa ciyaaraha anagoon xaafad iyo daan ku koobayn cid kasta oo danaynayaasha sportska in garoonkii Shulac hawshiisii iyo saylantii iyo suuxdintii ku jiray dhalinyaradu ay isku duubnaato baaqa aan maanta dirano jawaabtiisa la helo waxaan maanta xaqan u nimid aan garoonka soo dhex istaagno waxa weeyaan inaan baaqa darno baaqaas oo doonayn laga soo jawaabo oo dhalinyarada haweenta sportska aan ugu baaqano si gaaran waxaan doonaynaa inaan baaqan halkan uga darno gudidii garoonka gacanta ku haysay oo iyaga laftooda wax fiican qabtay laakiin garoonka muddadii
diirkaa lagu xidhay baa ugu dambeysay wax dambe oo laga qabto dayac fara badanna waa ka yara muuqdaa si dayacaana aynu uga dhammaystirno oo garoonkii noqdo garoon loo sii diyaariyey in lagu ciyaaro mustaqbalka oo uu noqdo garoon soo labeeya marka la eego stadium intan la eego caasimadda ku yaala laakiin waxaan rajaynaynaa in garoonkii si lagu sii ciyaaro oo dhalinyar badan ay motivation iyo dhiirigelin lagu noqoto inay xaqan ku ciyaaraan in loo sii diyaariyey garoonkii loo sii xaadho waqtigii madaxweynaha maanta talada joogaa uu kaambiinka ku jiray oo mar lasoo hadalqaado leehi waxaa laga dhigayaa garoon imka lagu sii ciyaaro loo sii beerbeergarayn dhalinyarada ku sii ciyaaraan isagoon karbadoolin waxaan dhodhan lahayn dhammaan bulshada Somaliland in laga qayb qaato gaar ahaan dadka ay khusayso sida ganacsatada dadka kale Ilaahay wax siiyay maalqabeennada dadkii ay u xil saarneyd hawshan inay qabtaan waxaan leenahay dhammaan dibad iyo gudaba in laga qayb qaato garoonka dhisitaankiisa haddaan nahay bahda sportska waxyaalo fara badan buu ka fiin doonaa dhalinyar fara badan buu soo saari doonaa jiil fara badan imika wada aragteen oo dhinaca walba in yaroo 20 mitir ayaaba ay ciyaartooyadii waaweyn ku dhaxaraarayaan ama lagu dhaawacmaya shacbi weynaha Somaliland meel gudaha iyo dibadda meel walba ay joogaan anagu baaqay inay ka soo qayb qaataan garoonka Shulac Stadium ee waqooyiga magaalada Hargeysa fariinta aan u dirana oo ah in ay caasimaddu ay leedahay hal garoon oo garoomo kala badan fara badan ay yeelato barnaamijka bandhiga goor kasta iyo meel kasta kala soco malcab.com anagoo ku soo bandhigi doona hadba waxyaabaha mudan in lagaga hadlo haddii alla idmo